السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو رئيس وحام هاسكال الله سبحانه وتعالى maanta waxaan rabaa inaan hore usii wadno casharadeen imtixaanaha ee maadada anatomiga waxaan hore usoo qaadan xiisidii hore habdhiska lafaha oo aan gebi ahaan inta badan isla wada dhameynay waxaan u maleynaa waxaa inoogu harsan laba qayb waa qaybta belfiga iyo waxaa inoogu harsan qaybta craniumka oo asna insha Allah xiisadaha dab aan ku qaadan doono hadoolen insha Allah maanta waxaan qaadanaynaa habdhiska dheefshiidka oo digestive system aad u jeedaan habdhiskan guud ahaan ayaan rabaa inaan mid u dul istaago oo aad ka wada faa'iidaystaan hadduu alle insha Allah habdhiska dheefshiidka ama si kale caafimaadna waxaa loo yaqaanaa digestive system ama gastrointestinal tract waa badanaa waxaa sameeya tubo loo yaqaan alimentary canal oo ah tubo kasoo bilaabata afka waxayna ku dhamaataa qaybta dambe ee anuska waxaa loo yaqaan alimentary canal waxaa waaye waa tubo is a tube that runs from mouth up to the anus marka tubadan waxay kasoo bilaabataa afka ilaa waxay ku dhamaataa dabada ama anuska ay ku dhamaataa saad u jeedaan muuqaalkan structure-kan oo idin muuqda qaybtan aad u jeedaan waxa waaye waa qaybtan u jeedaan waxa waaye waa carabkii waaye qaybtan waxa waa tango waa qaybta carabkii qaybtan u jeedaan waxa waa sanki waaye qaybtan waa nose waaye ama qaybtan waxa waa nasal cavity oo sanqalsad u taqaan af Soomaali ahaan qaybtan waxaa loo yaqaanaa pharynx waxaa loo yaqaanaa qaybtan pharynx ayaa loo yaqaanaa so pharynx waxaa loo qaybiyaa saddex iyadoo lagu saleynayo anatomically marka laga hadlaayo meelaha ay marayso ayaa waxaa loo qaybiyaa saddex salaano kale pharynx-ka yaala behind the nose oo ah sanka gadaashiisa pharynx-ka mar waxaa loo yaqaanaa nasopharynx ayaa loo yaqaanaa oo ah markii pharynx uu yaalo qaybta dambe ee sanka gadaashiisa waxaa loo yaqaan nasopharynx pharynx-ka markuu marayo qaybta oralka ama afka gadaashiisa waxaa loo yaqaan oropharynx markii uu marayo qaybta larynx-ka gadaashiisa waxaa loo yaqaan laryngopharynx ayaa loo yaqaan laftan ujeedaan qaybtan waa mandible-ka waay oo lafta qaybta beerka samaysa kuwan waa ilkihi waa teeth waay labadan waxa waay ilkihi waa teeth qaybtan waxa waa lafta maxillada waay oo si cross section loo jaray tubadan waxa waa esophagus waa tubada hunguriga qaada waxay kasoo qaadaa from mouthka ay kasoo qaadaa waxay keentaa stomach-ga oo caloosha ay keentaa waxaa loo yaqaanaa esophagus habka cuntada esophagus-ka ay ku socodsiiso waxaa loo yaqaanaa peristalsis oo ah qulqulka ama habka esophagus-ka oo cuntada ku socodsiiyo kadib qaybtan esophagus-ka wuxuu cuntada usii gudbiyaa xubin loo yaqaano stomach oo ah qaybtii caloosha caloosha waxay leedahay parts kala duwan qaybo kala duwan ayay leedahay waxaan ku qaadan doonaa haddoo alle insha Allah xiisada xigta ayaan ku arkaynaa kadib stomach-gii waxay usii gudbaysaa ama ay ku xirmaysaa xubin loo yaqaan small intestine so wuxuu ka bilowdaa qaybtan oo loo yaqaano pyloric junction ayuu ka bilowdaa pyloric wixii ka dambeeya waxaa bilaabanaya small intestine mindhiciraha ayaa bilaabanaya qaybtan ujeedaan waxa waaye waa qaybta ugu horeysa ee mindhiciraha small intestine waxaa loo yaqaana duodenum small intestine waxaa loo qaybiyaa saddex duodenum jejunum iyo ileum ayaa loo qaybiyaa soo qaybtan waxaa loo yaqaana duodenumku wuxuu kusoo wareegtaa madaxa pancreaska organka waxaa loo yaqaana pancreaska soo head of the pancreas ayuu duodenum kusoo wareegtaa soo marka duodenumku wuxuu sameeyaa qaab dhismeed oo sida siida camal ah ayuu sameeyaa qaab dhismeed sida siida camal ah waayo madaxa oo pancreaska ayuu kusoo wareeganaya kan waa pancreaska waa soo ujeedaan ama ganacsad u taqaanaan qaybtan waxa waa headka madaxi kan waxa waa body qaybtan dambe waxa waa tailki waa oo dibta waa waxaan tubadan martan waxaa loo yaqaanaa pancreatic duct oo tubadii dhacaanadii wixii soo qaadayso waa kadib small intestine-ka duodenumka waxaa ku xigay qayb loo yaqaano jejunum kadib waxaa ku xigay ileum kadib small intestine-ka waliba qaybtiisa u dambaysa ileum-ka wuxuu ku sii xirmaa qaybta large intestine-ka ayaa bilaabanaysa ileum-ka markii uu sii dhamaado waxaa ku sii xirmaya large intestine-ka ama colon-ka meesha small intestine-ka ama qaybtiisa u dambaysa ileum-ka meesha mindhicir weynaha large intestine-ka kaga xiranta waxaa loo yaqaanaa waa cecum-ka waa meesha kaga xiran cecum marka waxaa u dhexeeya labadooda valve oo loo yaqaano ileocecal valve ayaa loo yaqaanaa valvaha laba isku xir waxaa loo yaqaanaa ileocecal valve ayaa loo yaqaanaa kadib cecum-kii oo ah qaybta ugu horeysa oo meesha large intestine ka bilaawdo cecum kadib waxaa ku sii xigo ascending column qaybta waxaa loo yaqaanaa ascending column qaybta waxaa loo yaqaanaa transverse column ayaa loo yaqaanaa
ascending column meesha uu ka laabto oo xagash uu ka sameeyo markii uu isku bedelayo transverse column xagashan waxaa loo yaqaanaa hepatic flexure ayaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa hepatic flexure ayaa loo yaqaanaa kan waxaa loo yaqaanaa transverse column marka small intestine muuqaal ahaan uu ka duwan yahay large intestine oo large intestine wuxuu leeyahay waxyaabo laablaabyo ayuu leeyahay waxa uu leeyahay kuskuusi ayuu leeyahay waxaa loo yaqaanaa waxyaabahan kuskuusi waxaa loo yaqaanaa haustra waxaa loo yaqaanaa haustra ayaa loo yaqaanaa transverse column kadib uu asna wuxuu sameynaa xaga lamid ah xagasha oo ascending markii transverse isku bedelay xagasha uu sameeyo oo ah hepatic flexure mid lamid ayuu sameynaa xagashan waxaa loo yaqaanaa splenic flexure ayaa loo yaqaanaa kan wuxuu hepatic flexure kan waxaa loo yaqaanaa splenic sababtu waxay tahay midkan wuxuu ka sameeyaa xagasha splinka ayaa dul saaran oo dhanka splinka ayuu ka sameeyaa kan wuxuu ka sameeyaa dhanka hepatic ayuu ka sameeyaa kan waxaa loo yaqaanaa hepatic flexure kan waxaa loo yaqaanaa splenic flexure waxaan waxaa loo yaqaanaa qaybtan oo large intestine waxaa loo yaqaanaa transverse column qaybtan waxay noqon doontaa descending column ascending means waxa waaye markii large intestine oo kor u baxay waxaa loo yaqaanaa ascending qaybtan waxaa loo yaqaanaa descending ayaa loo yaqaanaa kadib descendingkii qaybta isku sii xigta oo idan waxaa loo yaqaanaa sigmoid column kadib sigmoid column wuxuu sii galayaa qayb kale loo yaqaano rectum ugu dambeyn ilaa anus marka rectumka waxay saxarada u keenaysaa si temporary ay u keenaysaa ilaa inta laga saarayo oo ay u sii keedinaysaa so qaybaha guud si overview ah si guud ahaan habdhiska dheefshiidka waxa waaye waa intaas iyadoo faahfaahsan hadduu alla idin insha allah casharadani xigta ayaan si taxan ugu qaadan doonaa hadduu alla idin insha allah haddaad muuqaalka wax badan ka faa'iiday sheer garay oo la wadaag si dhammaan ardayda soomaaliyeed ee barata kulliyadda caafimaadka ay wax badan uga fahmaan ha noqonin xasad haddaad taqaano qof caafimaadka barta u sheer garay muuqaalkan intaan muuqaalkeena mid lamid ah xalqadeen xigtaan dib kaga kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.